Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ku soo dhawow kanaalka Xogta Geeska. Kanaalka Xogta Geeska waxaad ka heli doontaa warar iyo warbixino xaqiiqada ku saleysan, kuwaasoo mar walba update oo aad helayso. Haddaba, si aad ugu xidhnaato kanaalkan, subscribe saar, gambaleelka yarkaana furo si ay fiidiyoyadu marka ay soo baxaanba ay kuu soo gaadhaan. garasho ma la cadaawada ka dhaxaysa Somaliland iyo Cabdirasaaq Teera oo ahaan jiray wariye ka howlgala Somaliland isla markaana u hulaalay dhanka iyo Soomaaliya kadib markii ay caqabado aad u waaweyn kaga yimaadeen dhanka xukuumadda Somaliland, taasoo uu ka garaabi waayay isla markaana u hulaalay dhanka iyo magaalo weynta Muqdisho, halkaasoo uu ka bilaabay waayihiisa wariyenimo ilaa uu heer ka gaadhay isla markaana ay dowladdu u qaaday dalka Turkiga iyadoo siisay weliba kaadhka shaqaalaha, kaasoo loogu talagalay inaan shaqaalaha la qaban meel kastoo ay marayaan. taasna ku darso oo weliba Turkigu waa la saaxiib Soomaaliya. Haddaba wariyahan Cabdirasaaq Teera ayaa si weyn uga soo horjeeda maamulada iyo Jamhuuriyadda Somaliland, maamuladaas oo ay ka mid yihiin Puntland. hase yeeshee Jamhuuriyadda Somaliland oo uu ka soo jeedo wariyahani ayuu aad u weeraray isla markaana uu sameeyaa warbixino aad uga soo horjeeda qadiyadda Somaliland, isagoo weliba hadda aaminay qadiyadda midnimada Soomaaliya. Haddaba wariyahan oo si weyn uga soo horjeeda Somaliland ayaa jamhuuriyadnimadeeda aad uga soo horjeeda isla markaana ku tilmaama maamul ka tirsan Soomaaliya, halka ay Somaliland iyo dadkeeda iyo ummadeedu ay aaminsan yihiin inay dalgaara yihiin isla markaana 1991 ay ka go'een Soomaaliya inteeda kale. Haddaba Somaliland oo kaliya kama soo horjeedo wariyahan, wuxuu sidoo kale weeraray maamul goboleedka Puntland oo si weyn uga soo horjeeda dowladda Soomaaliya iyo federaaleynta oo ay si weyn uga soo horjeedaan maadaama ay iyagu sameeyeen isla markaana aanay ogolayn in si qaldan loo isticmaalo. waa Puntland. maamulkan ayuu Cabdirasaaq Teera ku tilmaamaa maamul xun oo iibiyay dekedihii iyo meelihii muhiimka ah, sidoo kale Somalilandna kama maqna oo sidaas oo kale ayuu ku tiriyaa. hase yeeshee waxaa xusid mudan inaanay Somaliland maamulin madaxda Soomaaliya ka talisa, hase yeeshee ay Puntland maamuli karaan isla markaana ay ka joojin karaan waxyaabo badan oo ay Puntland aad ugu baahantay isla markaana aanay ka bixi karin federaalka Soomaaliya, maadaama Somaliland ay ku dhawaaqday madax banaanina. Somaliland uma qalanto waxaan ahayn gooniisu taag. hase yeeshee Soomaaliya ma ogola inay xornimada siiso Somaliland, balse Soomaaliyana midnimo ayay rabtaa oo dalku inuu wada jiro ayay rabtaa. haddaba waxaa isweydiin mudan, wariye Cabdirasaaq Teera ma xumaan buu wadaa mise wanaag? haddaba xumaanta uu wado Cabdirasaaq Teera ayaa aad xagga hoose nagula wadaagi kartaa, sidoo kale wanaagga uu wado xagga hoose baad nagula wadaagi kartaa. hase yeeshee Somaliland iyo Puntland, haddii aad ka soo jeedo aragtidaadu waa noo muhiim. Cabdirasaaq Teera ma xumaan buu wadaa mise wanaag? xagga hoose noogu reeb fariinta jawaabteeda. Salaam. subscribe saar kanaalka, like na ku qabo si uu dad badan u gaadho.